السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا وناكسنا أصحابتنا قالي قهمنا لبجكتها عاد كسر دباتان مقال كونا أو آد معلومات مقله وحمرس مقال كاني وحاول نقنا إياه مقال قفل بو هدو سوى عن أروحه ميرو لبو سوق فوركس أي كسابسن إنه فهم دون الليدنكي سؤال يرى كوبان أيها هل كان كموقضة سؤالها سوى حاكمي ده سؤال شيء الرئيسي متى هاي أرض يكون عصب سوق فوركس مقالكani waxa uu quseeyaa videoga suuqa forex ku cusub iyo kuwa dhaxdhaxaadka ah iyo dadka ku qalqalsan inay suuqani isma waxba ka keenin. Su'aasha labaad waxay tahay ma ku dhiban tahay tirade badan qaadashadooda. Waxaad arkaysaa in tirade fara badan oo qofku qaadanayo sadarteedna oo akoonkii halkaasi kaga takhalusay. Su'aasha xigta waxay tahay muuqaalkan kaga hadli doonaa leedinkii أسأل بدن مكوريري أسأل بدن مكودوي أو مكوريري سيدو كله درين كاجا تريد محكمين لا ضحي سيدو كله متى هيقف قاب فكر كيس تريد أنا وعنين في أنت سي جواب تادو هات هاي مقال كاني ومقال كاجا أنا سلا إجنو إذا وهبوني أو حول بعضكم فاهم كرتين سؤال شو قول رسوا حياتها هاي متى هاي arday ku cusub suuqa forex haddii aad tahay arday ku cusub suuqa forex waxyaalaha lagaga baahan yahay oo la doonayo inaad qabatid maxay tahay horeen qodob ayaan u kala qaadi doonaa waxaan ka soo bilaabi doonaa qofkani waxa uu yahay qofka ugu horeeya maanta suuqa forex bilaabay horeen qodobka ugu horeeya maxay tahay u soo diyaar garow ka hor intaadan waxba kala aadan qaban tusaale ahaan waa inaad haysataa agabyadii loogu talagalay ama lagu howlgali lahaa sida inaad computer aad haysatid sidoo kale mobile internet iyo goob lagu tiragelay oo gaar ah intaasi markaad isku haysatid ayaad wax walba bilaabi kartaa badanaa haddii aadan computer heli karin mobilka waa uu ka dabiri karaa hase ahaatee mar walba computerka ayaa mobilka ka muhiimsan qodobka labaad ee qofka cusub laga doonayo maxay tahay halka munaasibka ah oo aad wax ka baranaysid inaad ogaatid waa muhiim waayo waa halka meesha ugu wada muhiimsan haddii halka ka qaldanto weliga waad gabgableynaydaa oo waxba kuma toosayo marba meel ayaa laga sheegayaa ama aad ku qanci weydid meel walba aad joogtid marka u kurgal halka ugu munaasibka ah oo aad isleedahay alla ilaahay wax waad ka baran kartaa meelahaasi wax laga barto aad ay u tiribada yihiin waxaan ka soo qaadanay meelo kooban sadarteed muuqaalka waa qoraalkan qof walbo oo uu fahmi karaa af Soomaali ku hadla sadarteed waan dulmaraynaa leedinkii oo waan soo koobaynaa meelaha wax laga barto ama laga dheehdo waxa kamid ah sida inaad diiradda saartid YouTube-da website-yada sidoo kale buugaagta inaad akhrisid sidoo kale waxa kamid ah meelaha podcast-yada oo suuqa forex looga hadlo inaad mar walba isha ku haysid meelaha gaarka loo leeyahay haddii aad awoodid inaad iibsatid guruubyada la iskugu imaado oo goobaha wax walba lagu falanqeeyo oo dadyoga ku kulmaan traderada inaad mar walba isha ku haysid waxaan u gudbaynaa qodobka saddexaad waxaan ku soo sheegnay qodob koowaad oo ahaa inaad agabyadii aad heli kartid sidoo kale meelaha aad ka heli kartid waxbarashada aad xoog saartid waa qofka cusub ee suuqani ku soo biiraya qodobka saddexaad maxay tahay waxaad soo qaadatay waxaad soo baratay ku celceli waxaad baratay oo baaktasin ku samee oo mar walba istijaabi oo howlgali waxaad soo baratay waxa soo baratay hadaadan ficil aadan u bedelin waxba kuma hagaagaya marka maxaad sameynaysaa hal lacag soo qaado oo wixii ku dhaafay lacagtaasi wixii hore ay u soo tiragereysay soo qaado dib u eeg baaktis ku sameey qor istiraatiijiyadaada maxay ka waafaqday cilmigaaga aad soo baratay ma ka run sheegay bal eeg inta oo tijaabi kadib marka intaad soo tijaabisid waxaa samaysaa account demo furo oo isku day akoonkaas deemada ah inaad ula dhaqantid sida akoon live ah waayo waxaad bilowgaada samaysid ayaad bari ahaanaydaa tusaale sida aad akoonka deemada hadda aad ula dhaqantid ayaad midka live ka ah ama mid challenge ah ama mid kale to adigu gooni ah dad qaadatid aad ula dhaqmaysaa marka akoon deemo waaye isdaafi ahaan ha u isticmaalin oo adiga has qiyaamin isku day marka inaad rulkaaga aad ixtiraamtid sidoo kale waxaa samaysaa inaad dhowr trade aad qaadatid oo tusaale ahaan 10 trade si marka waxa loo baahan yahay inaad istijaabisid nidaamka aad baratay
ilaa intii ayuu ku waafaqayaa rulkaaga. 10 trade soo qaado tusaale ahaan, haddii inta ugu badan ay TB kugu dhacdo, inta kale ay ku harar martar kadib waxaad ogaanaysaa heerkaaga aqooneed halkuu la egyahay. mar walba waxaad soo baratay waa inaad ficil ahaan aad u bedeshaa. qodobka xiga marka halkaas waxaan kaga gudbaynaa inaad tahay arday cusub. marka hadda waxaan isla eegaynaa qodobka labaad, ma ku dhiban tahay tirade badan inaad qaadashadooda? haddii jawaabtaadu haa tahay, muuqaalkani waa muuqaalkaaga maanta. waxaad samaysaa intaan arrin ay soo socota waxaan rajaynayaa inaad ka gudubto leeyinkii. haddii aad tahay qof ku qalqalsan ama qof qaadashadiisa tirade fara badan qaadanaya, hal xilli trade garay London ama New York mid on focus ka saar. inta badan qofka waxa qalqalka ku keena waxay tahay ama uu ku jahwareero inuu mar walba trade fara badan qaato. tusaale London ay wuxuu qaadanayaa trade. London trade-kii uu qaatay waxa uu kaga dhacayaa SL, kadib waxa uu qasbayaa in trade kaleeto uu camcamiyo oo waxa uu xakameyn karin oo gacmaha ka baxaya ama farihiisa ka baxaya qorshihiisa. sidaa darteed marka taasi looga gudbo, mar walba isku day in aad hal xilli aad focus ka saartid. asxaabta baada bir laba focus mar walba asxaabta waxaan ugula talinaa waxay tahay in hal xilli xooga saaran. xilligaas xitaa waa u sii caymnaa New York Entry. New York Entry ayaan mar walba qof kula talinaa. New York waxa uu ka wacan yahay markii loo fiiriyo London. taa macnaheedu maaha London inaysan fursad bixinin, fursad waa ay baxaysaa, balse haddii aysan arrimo kale ku haysan waxaan kugula talinaynaa inaad xooga saartid New York Entry. taa macnaheeduna ma ahan in London aysan ahayn mid aan fursad bixinin. London fursad waa ay bixinaysaa. haddaba taa haddaan kaga gudubno oo qaadashada tirade fara badan, waxaan u gudbaynaa waxay tahay qodobkeeni xiga ah SL badan ma ku wareerin. SL badan horta waxaad ogaataa SL waa qayb ka mid ah trade-ka. haddii uusan jiri lahaynna suuqa ma wajireenba. SL hadduusan jiri lahayn suuqa ma wajireenba. sida awgeed si kasta aad u tahay trader buuxa, SL waa lama huraan, balse qaabka loo xakameeyaa oo looga feejignaadaa mar walba. mar walba aad trade qaadanayso si wacan iskaga eeg inuu trade-kaasi wada waafaqay dhammaan ruulada ku degsan. sidoo kale halka aad trade ka qaadanaysana waa muhiim, waayo trade-ka asigoo kuu saxan ayaa mar walba inaad ku degdegtid oo meel fog aad ka qaadatid trade-ka ayaa markaas inuu kugu soo laabto iyo SL-kaaga dhacaya. SL-ka mar walba waa difaacahaaga. dadku waxay u maleeyaan inuu khasaarahaaga yahay, ma ahan, waa difaacadi ku difaacaya. hadduu SL jiri lahayn akoonkaaga hal daqiiqo lagu dhex bixi lahaa. sidaa darteed waa muhiim inaad mar walba trade-ka meesha inta aad ka qaadanaysid waa inaad ogaataa. taa markaan ka gudubno, qodobka xiga waxay tahay dareenkaaga trade ma xakameyn la'dahay. qof walbo suuqani ku jira, ama ha ahaado mid professional ah ama mid ha ahaado bilow ah, qof walba dareenka trade aad buu u saameeyaa. waayo waxa meesha ka baxaya waxay tahay waa lacag adigu leedahay, waa xaddaadu la siiwayo. inta badan waxaa la arkaa in dareenka trade uu yimaado 3 mar. waa jiraan kuwo kale oo fara badan, hase ahaatee waxaan kusoo koobnay 3dan qaybood. trade-ka intaadan galin ka hor, trade-ka markaad ku jirtid, trade-ka markuu idlaado ama uu ku hareer maro oo trade-ka ama SL-kaaga dhaco. trade-ka intaadan galin ka hor waxaad leedahay yuusan ku dhaafin fursadani oo ka faa'iideyso trade-ka asigoo ceeriyana oo weli uusan bislaanin aad qaadanaysaa. markaasi maxay imaanaya marka? waxay imaanaya inaad qalqashid, waayo waxaa soo xasuusanaysaa inaad qalad ku jirtid oo trade-kii asigoo booskii la rabay intuusan imaan aad hore ku degdegtay. saa awgeed trade-kaasi maantoo idil aad ka baqanaysaa marka. sidoo kale qodobka labaad maxay tahay? trade-ka markaad ku jirtid, trade-ka markaad ku jirtid mar walba waxaad leedahay trade-kani meeshaad rabtay meesha ka soo horjeeda hadduu waafaqo, mar walba waxaad leedahay talow trade-ku mar uma intriga imaado waan ka bixi lahaa. adi dhan maanta idil waxaad ka fikiraysaa mar un trade-kina xirtid. sidoo kale waxaa jirta in haddii trade-ka adigoo qaadatay oo faa'iido yar markaad aragtid aad leedahay xiro faa'iidada adigoo targetkaaga la gaarin, waxaad leedahay trade-ka ma kugu soo laabtaa dareen waxaa kugu dhalanaya cabsi ah haddii faa'iidadan yar aad xiro weysid ama khasaaro kugu imaada, adiga maanta idil waxbaad ka fikiraysaa. marka trade-ka markaad ku jirtid mar walbo sharci
aad mar hore ku soo qaadatay rulada ayaad ku soo qaadatay si awgeed trade-ka SL u daa ama TB u daa hadduu faa'iido qayb ku baxana qayb ka xiro ama mar walba isticmaal trade-kana maamushid waa intaa sidaas ayaad ku xakameyn kartaa dareenka trade adigoo aad leedahay qodobka saddexaad ee aan ku soo koobnay dareenka trade maxaa ka mid ah trade marka uu asalkaaga dhaco qodobkani waa midka ugu muhiimsan guud ahaaneed waana midka ugu badan halista keena qofka inuu akoonkiisa ka takhaluso tusaale trade asalkaaga dhacay qorshahaagii ku degsanaa wad loo weedaa inta badan haddii aadan ahayn qof khibrad fara badan suuq haddaadan ahayn waxaa samaynaysaa inaad aargudatid oo astira trade-kani muxuu kaa qaatay intaan oo lacaga isku day soo celi maanta oo idil waxaad ka fikiraysaa saad ku soo celi lahayd trade-kaasi ogow trade walbo asalkaaga dhaco midka xiga haddaad qasabtid oo aad qaadatid waxaa la hubaa in trade-kaasi mar labaad oo asalkaaga dhacayo waayo ma xakameysana dareenkaaga trade oo waxaad ka fikiraysaa soo celin maanta oo dhan jadwalkaagii ma badegsanab sida awgeed waxaad samaynaysaa marka haddii trade-ka asalkaaga dhaco ama ku hareemaro isku day marka inaad jawiga degsatid oo qorshe ah ku degsan yahay in maalintii laba fursad aad qaadatid fursadda koowaad diidsa ay ku dhaaftay fursadda xigta sugo adigoo aan waxba kala qasbayn teed kale isku day marka haddii trade asalkaaga dhaco inaad laptop isku xirtid wixii kuu shidnaa aad damisid magaalka aad gashid saa London aad trade gareysaa London asal aad qaadatay New York soo laab haddii laba trade maalintii ay ku qorshahaagu tahay inaad qaadanaysid haddii laakiin qorshahaagu yahay jadwalkaaga hal trade indoo yahay maalinta sida kaaga dhamaatay maalinta xigta Allah u gaarsiiyo okay muuqaalka waan dul maraynaa adika ayaa qasanaya qoraalada inta ugu badan qodobka kala maxay tahay ma tahay qof qaab fikirkiisa trade ana wacnayn qodobkani waa muhiim inta aad waxba kala qaban soo dhis waxyaalaha kugu xeendaaman sida haddii aad doonaysid inaad London trade gareysid isoo dhis tusaale ahaan kolkaas salaadaas wax soo tukatid kitaabkaaga quraan aad soo akhrisatid adkaartaada sidoo kaleeto kadib jimicsigaaga aad soo samaysid xagaaga baahan inta kale marka jimicsigaaga aad soo samaysid oo intaas aad soo qabatid quraacdaada soo asturo dabcan soo cun imaam markaa kadib halkii marka aad ku trade gareynaysid marka imaadid computerkaaga boorka ka jaf wixii maalintaasi ku qorsheysan soo qaado ama wixii ku qoran kadib sharciyadaada dulmar sharciyada ku degsan adigoo fahamsan xitaa akhri oo indhay taa waxay ku saalaysaa kalsoonidaada trade inay mar walba si kor sii ahaato maalinta fursadaha lacag fursadahaas dhigi karto maanta trade ayaa ka bixi karana tixi saaro haddii xilligii fursadda ay timaadana ha ka walwalin oo qaado macnaha qoraalka mid uma akhrinayo muuqaalka ah balse waxaan ka siinayna asxaabta waxay tahay in fikir ahaan qoraalka adiga ayaa akhrisanaya alla idinkii sidoo kale intaa markaad soo ogaatid oo adiga aad soo qaadatid wixii ku qorshaysnaa kadib meesha ugu muhiimsan waa halkani intriga meelaha ugu fiican qodobkani waa qodob aan dib ugu soo darnay muuqaalka intriga meelaha u fiican iyo meelaha ugu khatarta badan ee la rabo haddii aad qaadanaysid inaad ka feejig marmarka qaar laba goob ayay noqdaan oo intriga inta badan haddii inta badan aad tahay dadka ka trade gareeya gaabiyada in marmarka qaar ay yeelato laba gaab marmarna ay yeelato saddex gaab marka sawir waxaa jira oo aan asxaabta aan ugu talagalnay oo qaybta hoose ka muuqda mar walbana haddii aad rabtid in trade-kaaga intriga aad ka qaadanaysid oo ahaa intri aadan ka walwalin mar walba waxaa sugtaa meesha ku habboonaad intri ka gashid qormadani waxaan rajeynayaa asxaabta inay iyaga akhrisan doonaan waa qormo aad iyo aad u muhiim ah waxaan u dhaadhacaynaa qaybta hoose ee sawirka intani qoraal haddaad fahantid qaybta hoose ee sawirka waad fahmi doontaa alla idinkii waan ku soo koobnay asxaabta inay fahmaan meeshani waxaa ka muuqda waxay tahay in trade shift dhacay gaabiya halkan ay ka muuqdaan gaabiyada ugu fiican ee qofka la rabo inuu sugo waxa weeyaan gaabiyada asalkoodu yar yahay gaabiyada ugu fiican waa gaabiyada halkan idin kaga muuqato gaabiyada khatarta lehna waad arkaysaan sida awgeed waxaan rajeynaynaa in asxaabta ay fahmi doonaan muuqaalkani wuxuu noqonayaa la idinkii
muuqaalkii intaan la gelin bisha Ramadaan ka hor asxaabta baada bir laba fikis aan u soo duubnay. Ramadaan haddii la gaaro alla idinkii waxaan rajaynaynaa in ay tahay bil cibaado, asxaabtana ay inta badan ay mashquulayaan. Sida awgeed muuqaalkani waa muuqaal aad iyo aad u muhiim ah